Sheikh Awil Abshir Haji oo kamid ah culimada diinta ku dhaqan magaalada Buuhoodle ayaa mar kale waxa uu deeq lacageed gaarsiiyay qoys danyar ah oo agooma ah oo haysta laba caruur ah oo qaba xanuunka dhimirka ama waalida sidoo kalena caruurtaasi ayaa waxa loo bilaabay guri ay degaan si looga saaro gurigii hore ee kirada ahaa sheekha ayaa ugu baaqay dadka islaamka ee jecel khayrka inay soo caawiyaan caruurtan yar isla markaana ka soo qayb qaataan dhamaystirka gurigan loo bilaabay si noloshooda loo soo kaabo waxaan ahay anigu sheekhi Awil Abshir Haji kana mid ahaa guddiga tabarucaadka oo inta ugu sareysa ahaa waxaan u sheegaynaa dadka muslimiinta ah ee daawanaya gurigan aan hadda taaganahay waxa weeye waa gurigii aan caruurta agoonta ahayd ee ilma Cali Ismaaciil Shabeele aan u bisinay hadda wuxuu marayaa 2 mitir hooyadan waxa weeye hooyadii ubad ka dhashay caruurta ilma Cali Ismaaciil hooyadooda gabadhaasina waa walaasheed ilmaha yarna waa ilmo yar oo ay dhashay Caasha ay dhashay waxa weeye caruurtii agoonta ahayd aan idin sheegay kuwii waa lama soo kaxayno de gurigii buulkii yaraabi jiraan oo ka maqan yihiin saasay sawirka idin ka muuqanay labadii waa la soo xidhay iyaga laga yimid marka muslimiinta waxaan u sheegaynaa wixii horta wax u soo diray Ilaahay ha idinka abaal mariyo dad badan baa soo taabiyay soo taakulay wax soo taray soo caawiyay Ilaahay waxaan idin baryaynaa Allah idin caawiyo wixii soo caawiyay Allah idin caawiyo ubadka Allah idin ilaaliyo naftiinana Allah ku ilaaliyo aakhiradiina iyo adduunkiina Allah idin ku aslaaxayo Allah idin ku hagaajiyo saasaan idin ku alla baryaynaa dad badan baa duca naga soo dalbaday oo muslimiintaas ah iyaguna way idin ducaynayaan oo dadka masaakiinta Ilaahay ducadooda uu idin aqbalaya annana dadka u tabarucaya u taakuladooda u kacay Ilaahay dartii ugu kacay baan nahay dadka markaan aragnay inay dayacan yihiin yani u kacay oo u dhawaaqay oo islaamka alcansa idin ku soo gudbiyay yani media idin soo mariyay horay wixii u soo gaadhay waanu idin sheegnay wixii horay gacanteena u soo gaadhay aan ku wareejinay maamada ka bacdi guddidu ay ku shaqo gashay oo gurigan ay ku bilowday waartaan meesha aan ka dhisnay dhulka yani guriga ka dhisnay reerku muu lahayna waan u iibinay waana boos dhan ma aha nus boos waa boos iska dhan marka khayr Allah idin siiyo haddana inaad sidii caruurta u soo caawisan anagu waxaan tala jirnay qolkan iyo suuliga wixii yani qarshiyaadana soo gaadhay inaan ku qabiyo tirno marka suuli hadda barkad way u baahan yihiin waa dad xanuunsanayo geed way u baahan yihiin walaalayaal khayr Allah idin siiyo intii horena Allah idin ka maartay aad tarteen Allah idin ka ajir iyo xasanaad Allah idin ka siiyo intii damana la idin ka bedelsano waan idin baahan damana la idin ka bedelsano waa idin baahan yahay oo agoonta yar way idin baahan yihiin oo dadka masaakiinta way idin baahan yihiin haddana waxaan jecelahay intii dambe lacagii hore aan yeedhinay ka dambeysay in aan idin soo gudbino waxaan idin sheegayaa fadlan idinka raali ah wixii magaciisa ka waaya yani Soomaali channel ka arki waayay TV-ga inuu website-yada ka daalacdo magaciisa dhameystiran iyo lacagtii uu soo diray oo dhameystiran waxa ugu horeeyay dadkii dambe ee lacagta ka helnay Aamina Maxamed Ismaaciil khayr Allah ku jazeeyo $300 ayay ku soo caawisay waxa ku xigay Cabdiraxmaan Cismaan Maxamed oo soo diray $100 waxa ku xigay Xaawo Cabdikariin oo soo dirtay $150 waxa ku xigay Maryan Weheliye shiilal oo $50 soo dirtay waxa ku xigay Faisa Xasan Huruuse oo soo dirtay $150 waxa ku xigay Umar Abukar Maxamed oo soo diray $50 waxa ku xigay Cabdiraxmaan Axmed Cabdi oo soo diray $50 waxa ku xigay dahabo sahal Maxamed oo soo dirtay $20 waxa ku xigay Cabdirasaaq Cali Xasan oo $50 soo diray waxa ku xigay Bashiir Igalle oo soo diray $306 waxa ku xigay Faadumo Cabdi Nuur oo soo dirtay $50 waxa ku xigay Bashiir Xaashi Afyar oo soo diray
$110 haddana isla Bashiir Xaashi Afyare ayaa wuxuu soo diray $110 kale Caasha Jaamac Xuseen oo soo dirtay iyana $100 Cabdikariin Axmed Qorane oo soo diray $50 Ikraam Maxamed geedi oo soo dirtay $50 Sucaad Cabdiraxmaan Ibraahin oo soo dirtay $50 Hodan Aadan Axmed oo soo dirtay $96 Farxiya Suleybaan Cali oo $100 soo dirtay Aamina Ibraahin Aadan oo soo dirtay $100 Farax Cabdi Daad oo soo dirtay $100 Axmed Cabdilaahi Jibriil oo soo diray $25 isugeynta lacagtaas waxay noqotay $2,165